ambaqaadka geediga sida awrta loo raro heesaha u gaarka waxa lagu aloosaa magaceebaheeyo adniyo afwada jira. asalaamu calaykum ayeeyo waa ayeeyo cusub oo idinkala soo hadlaysa cooking with ayeeyo. maanta haddii alla yadhi waxaynu karinaynaa hilib geelka oo aynu ka samaynayno wax la yidhaahdo madhaafaan ama stew. waxaana lagula cuni karayaa moofo ama laxoox ama canjeelo iyo laxoox oo isku mid marka u horeysa ayeeyo waxaynu samaynaynaa saatee baynu taabanaynaa. hilibkan baa aada iyo aad u baruur badan, marka saliiddaa aada u yar ayaynu ku shubaynaa oo hal qaada khudaar fara badan ayaynu ku daraynaa. wuxuu noqonayaa kolkaa hilibkii oo bisil iyo maraq iyo khudaartii. dabeedna moofadii ayaynu samaysanaynaa. dabeedna moofadaas ayaa raacaysa maanta oo ayaa lagu cunayaa. marka aynu ku shubno saliiddii oo ay yar kululaatay 30 seconds buyna siiyey, waxaynu ku daraynaa basashii oon laba qaybood u kala qaybiyey. basasha oo xabad iyo laba xabadooda maanta, xabad ahaan tiyo yaryar ayaynu jarjarnay oo anigaa ku shubay. xabad ahaanna tiyo waaweyn oo waynu u dambaysiinaynaa iyada si ay digsiga ay udgoonayso ama raashinka u udgoonayso. waxaynu kale ku daraynaa haddii alla yadhi xawaashiyadii. waxaynu ku daraynaa hilibka, waxaynu ku daraynaa tamaandho. so waxay ka kooban yahay digsigan raashinkan aynu maanta karinaynaa ee madhaafaanka ee hilibka geela ka samaysan. waa hilib geel, waa basal, waa kamsaradii iyo toontii oon maanta basbaas akhtarna kula soo shiiday, waa tamaandho xabuub, waa dabacase, waa baradho, waa xamar juuskii, xamarkii inta la raadiyey la miiray juus laga sameeyey. intaasoo dhan markii laysku daro hilibkaa geela had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa hilibka geel wuu adag yahay, laakiin kan wuu beeneeyey hilibkii geele adkaa. oo had iyo jeer hilibka geela waxa uu leeyahay muruqyuu leeyahay, marka kan wuxuu leeyahay baruur, laakiin digsigu wuxuu inagu qaadanayaa uun inuu ku kariyo daqiiqado 22 daqiiqadood waxaas ayuu inoogu karinaya. marka basashu markay saa yara casaatay ayaa waxaan ku daraynaa hilibku maanta waa hilib geel oo dhan. wuxuu dhan yahay 2 kiilo. wuu yaryar yahay, ma aha hilib waaweyn oo lafo wata. waa hilibkii oo wataa baruurtii leh, laakiin cubes loo googooyey. marka hadda waan inoo yara casaynayaa hilibkii. samaynaya kolkaa waxoogaa dheecaana, subag baase udhiisa ka baxaya oo wuxuu yeelanayaa suuq badan oo wuxuu leeyahay baruur. xawaashiyada aynu ku darayno waxaa ka mid ah ayeeyo kamuuntii, filfishii, cusbadana waynu u dambaysiinaa. marka kamuunta filfisha waxay samaysaa hilbaha markaad samaynayso urtay ka biisaa. marka malqacadda yaree shaah afkeed ayaan filfishii inuu kululaadaan doonayaa.
ayaan kulkishii noogu soo shubo. Masha Allah. marka maadaama uu hilib geel yahay waxoogaa waynu ku yara raajinaynaa suu hilibku inoogu casaado, inoogu yaro brown uu noqdo. ayaynu ku yara raajinaynaa saatee. waxaynu markan kale ku daraynaa halkaas waa shariye kamuunti. kamuuntaasoo iyana ahayd malqacadda yaree teaspoonka haabteeda. haddaad ufteeda aada u jecesho waad ka badsan kartaa oo malqacad waad ka dhigi kartaa kamuunta, waayo waa hilibkan waxaad karinaysaa. waxaan kale ku daraynaa markan toontii iyo kansaradii oo aan xabad basbaas cagaar ah ku daray. so basbaaskii akhtarka ahaabaan xabad jeexay iyo basalbaadkii iyo toontii iyo kansaradii ayaan isku soo shiiday. marka maadaama uu yahay hilib iyo maraq waxa la ysku cunayaa, waxaan rabaa inuu waxoogaa yaroo basbaas ah uu yeesho. haddaadan basbaaska jeclayn, filfisha iyo basbaas akhtarkaan soo shidayba waad ka daynaysaa. marka hadda yara karayaa, waayo kansaradaynu ku daray ayaa waxoogaa yaroo biyaala. digsiga ayaan malqacadda had iyo jeer ugu walaaqaya. waxa weeye digsigaan ka ilaalinayaa inaanu gunta kaga dhigin. hadda waxaan kale inoogu darayaa tamaandho xabuubtii, taasoo 2 xabo oo aan jarjaraya. waxaan inoogu darayaa dabacasihii ama kaaradkii oo isagu 3 xabo oo waaweyn oo aan jarjaraya. waxaan inoogu darayaa baradhadii oon iyada si waaweyn u jaray. waxaan doonayaa in aanu ay baabi'in, ileen biyaynu ku karinaynaa. waxaan ku darayaa kolkaa koobka meesharinka, marka 4 meelood meel ahaan loo qaybiyo raqay ama xamar juuskeed. soo xamartii intaan radiyey ayaan dabeedna shaandho ku miira. taas waxay siinaysaa dhanaan yaroo wacan. waxaynu hadda ku daraynaa cusbadii. cusbadu waa 1 qaado oo qaadada yaree teaspoonka ah weeyaan. marka maadaama aan xamarta ku daray, dhanaankeeda iyada intaa ka badin maayo. waxaan kolkaa hadda ku darayaa biyihii oo ah koob iyo badh biyo ah. haddaad intaa maraq ka badan aad doonayso, waxaad samaynaysaa 2 koob ayaad ka dhigi kartaa. marka maadaama hilibkii badnaa, biyuhuna ay digsiga loo ogol yahay 1 meelun inuu joogo, waxaan ka dhigay koob iyo badh.
xagga sare wuxuu ugu dambaysiinayaa oo aan ka saarayaa waxa weeye basal aan waaweyn u jaray basasha waanigii kuli waa 2 xabo iyo barbarooni saxbad basala iyo waa jeex barbarooni oo iyaga xagga sare aan ka saarayaa biyaha ayaan ka sarraysiinayaa waxaan rabaa inay hadhowto iyadoo balbalaaran markuu bislaado la bislaado intaas weeyaan ma dhaafaankii oo la isku daray hadda kolkaa digsigaynu daboolaynaa saacadii baynu saaranaynaa waxaynu ka sugaynaa inuu digsigu inoo bisleeyo waan xidhnay kan way waxaynu geynaynaa siile inuu halkaa joogo dabadeedna waxaan kansal garaynayaa saakeegii kansal baan taabanayaa waxaan taabanayaa kolkaa pressure cook time buu ina siinayaa timekaasaan waxaan ka dhigayaa 25 that is it waa kaas ayay soo digsigii wuu bisleeyey ma dhaafaankii marka waxaan sameeyey qiiqii baan ka saaray ama steamkii baan ka saaray intaan baalka meesha ka qaaday marka daboolkan inooga qaadaya saynu u wada aragno caynkuu noqday wakaas maasha allah marka waa kaa quruxda aad aragto digsigii gudihiisii waxaan kolkaa halkanna inoo soo dhigay moofadii baan sameeyey iyadana boolkii baan ka qaaday si kolkaa moofadii iyo madhaafaankii ayaad isku samaysanaysaa marka labas habkaa doontaad u cunaysaa ama waad ku qoysanaysaa ama waad isku dhex jarjaraysaa sidaa iyo nabadgelyo iyo waa inoo wiiga dambe haddii alla yeedhi resabigiina isagoo qoraala waan soo raacinaynaa waa ayeeyo cusubo oo idinkala soo hadlaysa cooking with ayeeyo waxaan idinka codsanayaa inaa wixii aad su-aale haysaanna ii soo qortaan and subscribe sida imaan wanaagsan alif la kordhebey alif la hoos dhebey alif la gooday alif la kordhebey alif lagu reeb alif la hoos dhebey yaa lagu reeb alif la gooday wow lagu reeb